gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Abshir Maxamed Axmed ayaa sheegay inuu hogaamin doono galdacwadeed lagu gudbin doono Farmaajo. gudoomiye Abshir ayaa sheegay in galdacwadeedkan ka dhanka madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday ay ku baadi goobi doonaan dhalinyaradii dhalinyaradii loo qaaday wadanka Eritrea ee maqan kuwaas oo leeyahay kuwaasoo dhalinyaradaas oo loo qaaday tababarhaan wadanka Eritrea laakiin mar dambe la sheegay inay ka qayb qaateen ama la geeyay dagaaladii ka dhacay waqooyiga Ethiopia bartamihii bishii November sanadkii 2020 aan kasoo gudubnay. waxaan go'aansanay inaan horkaco dacwada ka dhanka maamulka Farmaajo ee lagu baadigoobayo caruurta maqan muddada 2 sano ka badan ee ku maqan wadanka Eritrea ayuu yiri gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare Abshir Buqaari. Abshir ayaa talaabadan u qaadaya si ay cadaalad u helaan waalidiintii ama waalidkii dhalay dhalinyaradaas isla markaana aysan helin warbixino ku saabsan xaaladooda kadib markii dawladda ay iska dhigatirtay baaqiyo kala duwan oo loo jeediyay oo ku saabsan in arrintan ay xog ka keento. waxaa kaloo uu qaadista arintani ku tilmaamay mid sharci darro in dhalinyarada loo qaado wadankaas isagoo ugu baaqay ummadda Soomaaliyeed ee hay'adaha xuquuqul insaanka in arintan ay wax ka qabtaan. dawladda waqtigu ka dhamaaday oo hogaaminayo Farmaajo ayaa gebi ahaanba iska indhatiraysa baaqyada ku saabsan ama qeyladhaanta waalidiinta ka soo baxaya oo qaarkood ay dalbanayaan in meel lagu sheego cabashada la xiriirta caruurtooda oo ku maqan wadankaasi Eritrea kuwaas oo nolol iyo geeri lagu leeyahay. gudoomiyaha aqalka sare dalka Cabdi Xaashi mar uu ka hadlayay 27kii bishii May aan ka soo gudnay saxiixa heshiiska doorashada oo munaasabad weyn lagu qabtay magaalada Muqdisho kana qayb galay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa ka dalbaday madaxda qaranka inaysan ka aamusan caruurtan ku maqan wadanka Eritrea oo ay ka hadlaan oo ay xukuumaddu ama madaxweynuhuba dadka soo hor istaago faahfaahin uu ka bixiyo waxa ka jira in caruurtaas loo adeegsaday dagaal ka dhacay waqooyiga Ethiopia oo ay dawladda Ethiopia ay la gashay jabhad ka soo horjeeda oo lagu magacaabo TPLF. dacwadda Abshir Buqaari oo hogaaminayo ayaa waxay ku soo aadaysaa saacado kadib markii warbixin ay baahisay guddiga xuquuqul insaanka qaramada midoobay kuna saabsanaa ku lug lahaanshaha ciidamada Eritrea ee Soomaaliya leedahay lagu tababaray kuwaas oo xadka Soomaaliya ka soo tallaabay una u gudbay wadanka Ethiopia kana barbar dagaalamay ciidamada Eritrea ee qaybta ka ah dagaalkii ka dhacay waqooyiga Ethiopia. warbixinta qaramada midoobay ayaa lagu xusay in ergeyga gaarka ee xuquuqul insaanka uu helay macluumaadyo muujinaya in askar Soomaaliyeed laga soo wada qaaday xeryaha lagu tababarayay ee wadankaasi Eritrea ku taala isla markaana la geeyo goobaha dagaalka ee Tigreega. warbixintan oo ka koobneed ilaa 17 bag ayaa qeybaha ugu muhiimsan ee laga soo qaatay waxaa lagu sheegay in ciidamada markii ay ka soo gudbeen xuduudda Ethiopia ayna u talaabo waa xuduudda Eritrea ay ka soo gudbeen ayna u talaabeen xuduudda Ethiopia ayna ka qayb qaateen dagaaladii ka dhacay dalkaasi. marka laga soo tago wararka sheegaya ku lug lahaanshaha ciidamada Eritrea dagaalka Tigreega wakiilka gaarka wuxuu sidoo kale uu helay macluumaadyo iyo warbixino sheegaya in askar Soomaaliyeed laga raray ay tababarka ku qaadanayeen military ee Eritrea lana geeyay goobaha dagaalka halkaas oo la sheegay inay ku weelinayeen ciidamada Eritrea oo qudhooda ka gudbay soodinta Ethiopia qaybna ka ah dagaalkii ka dhacay waqooyiga Ethiopia. sidoo kale waxaa la sheegay in ciidamo badan oo Soomaaliyeed dagaalkaas ay ku waa la geeyay gobolka. warbixintan ayaa waxaa lagu xusay in dawladda Soomaaliya ay beenisay in askar Soomaaliyeed ay ka qayb qaateen dagaalka Tigreega ayagoo guddi ka socda baarlamaanka Soomaaliya ay ka dalbadeen madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Farmaajo in sharaxaad ku saabsan arrintan uu bixiyo oo dadka uu la hadlo waxa ka jiran ciidamo Soomaaliyeed loo qaaday Eritrea. arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli waalidiin badan oo caruurtoodu ku maqan wadankaas Eritrea ay wajahayeen xaalado muruga oo maalmihii dambena banaanbaxyo cabasho ay ka dhigayeen waalidiintaasi kuwaas oo ay sheegayeen in caruurtooda nolol iyo geeri ay ku laayihiin waxayna waalidiinta muddooyinkii ugu dambeeyay ay dhigayeen banaanbaxyo ay ku dalbanayeen in meel lagu sheego caruurtooda ku maqan wadanka Eritrea.